waxa lixaad oo qofka lagu dili karaa oo dilka mashruuca ah lidafci saa'il qofkii ummadda soo weeraray horarka ah horar baa la yidhaha af soomaaliga ee nafta iyo maalka iyo cirdiga qofka ku soo weeraray sabab la'aan jumhuurul culamaa waxay isla waafaqsan yihiin in la iska difaaca inay waajib tahay ilaahay baa wuxuu uhi faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimidli ma ictadaa calaykum qofka idinku xadgudba idinkuna waxay ugu jawaabtaan wuxuu idiin geystay oo kale faqaatilu allatii tabqii xataa tafiya ilaa amri illaah dadka idinla dagaalamaya ee xumaanta idinku haya gardarrada ku socda la dagaalama buu ilaahay saxiixu muslim waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra nin baa nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam su'aal muhiima buu weyddiiyey wuxuu idhi waxaad iga warrantaa hadduu nin yimaaddo doonaya xoolahayga inuu qaato markaasuu nebigu yidhi dee ha siinin hadduu ila dagaalamo ka warran buuri dee la dagaalan buuri oo hadduu kawba igaga siiyo ka warran buuri dee shahiid baa tahay haddaan anigu kaw kaga siiyo ka warran buuri dee naartu ku jiraa buuri dee warkiiba uu dhammeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa toddobaadoo